madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna ku siman madaxweynaha Marwa Sucaad Axmed Faarax ayaa sheegtay in gabarda cusub ee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu soo iibisay hay'adaha nabadgelyada deegaanka ay si dardargeen doonaan adeeg bixintii shaqo ee loo hayay shacabka deegaanka. Faafahinta warkan iyo wariyahayga Mustafa Yuusuf. xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo mar walba dadaal ugu jirta kor u qaadista nabadgelyada horumarka iyo maamulka suuban ee deegaanka iyo waliba ka jawaabidda baahida shacabka deegaanka ayaa waxay xukuumaddu si loogu guuleysto qorshayaashaasi loona helo qalabyada iyo maashiinariska kala duwan oo uu ka mid yahay gaadiidku ay xukuumaddu soo dejisay waqtigani gaadiid tiro badan oo kor u dhaafaya 81 gaadhi oo 51 ka mid ah gaadiidkaasi ay waqtigani soo gaadheen xarunta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga. gaadiidkan oo ah mid loogu talagalay in lagu xoojiyo hawlaha nabadgelyada sidii loo heli lahaa nabadgelyo waarta iyo horumarka ayaa waxaa munaasabadii lagu daafurayay gaadiidkani ka hadashay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna ku siman madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwa Sucaad Axmed Faarax oo tilmaantay in gaadiidkani ay kaalin muhiim ah ka qaadanayaan baahida dhinaca gaadiidka ee jirtay laguna dardargelinayo hawlaha dhinaca nabadgelyada iyo horumarkaba. run ahaantii waxaan maanta isugu nimid waxa weeyaan gaadiidkan xukuumadda soo iibisay gaadiidkaas oo loogu talagalay in lagu xoojiyo hay'adaha nabadgelyada maadaama ay shacabka waxyaabo badan ay ka difaacayaan. marka waxaan xafladan loogu talagalay in aan ku guddoonsiino gawaaridan ama gaadiidkan hay'adaha nabadgelyada. waxayna madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna ku siman madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwa Sucaad Axmed Faarax ay hay'adaha nabadgelyada ugu baaqday in sidii loogu talagalay ay uga faa'iideystaan gaadiidkani. sidoo kalena hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Yaasiin Cabdi Waris oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadani ayaa sheegay in gaadiidkan ay kaalin weyn ka qaadanayaan dadaalada kor loogu qaadayo nabadgelyada deegaanka. gaadiidkan loogu talagalay nabadgelyada hay'adaha nabadgelyada kala duwan waanu ka guddoonnay annaguna mataqaanaa xukuumadana si sharaf leh uga guddoonaysa sharafta inoogu soo gaday ee hay'adaha nabadgelyada kala duwan ay ugu xisaabtamayso shaqooyin kala duwan haya annaguna haddaanu hay'adda nabadgelyada afka hay'adda nabadgelyada ku hadlahaya waanu ka guddoonnay. waxa uu sidoo kale Radaad Commissioner Maxamed Maxamuud Cabdullaahi Qayo oo ka hadlay munaasabadani sheegay in gaadiidkan tirada badan ee deegaanka soo gaadhay ay muhiim gaar ah u leeyihiin dardargelinta hawlaha nabadgelyada iyo horumarka isla markaana uga mahad celinayo dadaalka ay xukuumaddu samaysay. gaadiidkan maanta aan xafladiisa ku nimid wuxuu qayb ka yahay mataqaanaa gaadiid loo soo galay hay'adaha amniga. waxaan aad uga mahad celinaynaa anagu mataqaanaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida codsiga markaan u keensanay sidii mataqaanaa diiranayda baaqi jawaabta ay uga bixisay iyo miisaaniyadii lagu bixiyay. marka waxaan aad u rajaynaynaa mataqaanaa hawlaha nabadgelyada inay ka qaadan doonaan kaalin laxaad leh. gaadiidkan oo ah kuwa lagu xoojinayo hay'adaha nabadgelyada ayaa waxay halkaasi ku-xigeenka madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna ku siman madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwa Sucaad Axmed Faarax ay gaadiidkani ku wareejisay hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. gaadiidkan oo isugu jiray qabaalada shirlaha kuwa laba shirlaha iyo waliba minibaasyada ayaa waxaa inta dhimana la filaya in waqti dhow gudihiisa ay ku soo gaadhayaan deegaanka. wasiir ku-xigeenka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta